leeyahay xildhibaanada Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka lagana soo doorto Minnesota ayaa shaacisay inay aqal gashay. Ilhaan ayaa barteeda Instagram-ka soo dhigtay sawir ayada iyo saygeeda cusub oo lagu magacaabo Tim Maynard, iyadoo ay ku qortay waan guursaday, waxaan lamaana ku ahay siyaasadda, haddana waxaan ku nahay nolosha, waa barako ayay leedahay. alxamdulilah. Marka waxaan rabnaa bal ninkaas cusub ee guursatay, waxaan weydiinayaa Ridwaan iyo kuma ninkaas diintiisa xildhibaan miyaa asaga naftiisa muxuu yahay? ninkaas sheegtay horta xildhibaaneed maxaa la yidhahdaa Ilhaan Cumar waa gabar Soomaali ah aad caan ugu ah ummadda Soomaaliyeed gudaheed. waa gabar laga soo doorto gobolka Soomaalida ay ku badan tahay ee Minnesota saad sheegtay. haddee qof hadda aan dadka baraay ma badanaa waa la yaqaanaa. waxaana la ogaa hore inay nin Soomaali ah isku qabeen oo 3 caruur ah ay isu dhaleen. laakiin sidii lasoo dhigayba si weyn ayay u dhex socotay social media ama baraha bulshada Facebooka iyo meelaha kale in ay ninkeedii hore ee Soomaaliga ahaa ay kala tageen bishii sanadkii hore aan kasoo gudubnay, adiga bishii November iyo agaarkeeda inay kala tageen. marka gabar iska garoob bay aheedoo maxaa la yidhahdaa sanadkii hore dhammaadkiisa ilaa hadda aan la guursan. marka ninkan hadda ay guursato, marka buuqa iyo ka hadalka iyo waxyaabaha waxa dhali ayay waxay tahay Tim Maynard ninka ku sheegtay oo hadda ay sheegtay Ilhaan inay guursatay ayaa wuxuu yahay nin cadaan ah, waa nin Mareykan ah. marka gabar Soomaali ay aheedoo ninkii cadaanka ay guursatay ayaa waxa la leeyahay waaw maxaa jira meesha, maxaa ka socda ayaa la leeyahay. marka ninkan horta say sheegtay waxaan lamaano ku nahay siyaasadda iyo nolosha. taas waxaa laga wadaa ninka horta nin cadaan ah waaye, nin gaal ah waaye, say u eg tahay iyo say u muuqataba. marka dadka Soomaalida waxay walwal ka muujiyeen oo kale gabar muslimad ay ahayd nin gaal maxay u guursatay iyo waxyaabahaas oo kale. marka ninkan horta haddaan ka hadlo, ninka wuxuu ahaa la taliye ayuu u ahaa sida la sheegay, oo maxaa la yidhahdaa intii isa guursan ka hor ayuu la taliye dhanka siyaasadda ayuu ahaa. waa nin Mareykan ayuu ku dhashay. waxaa la sheegay inuu jaamacad ku taalo South Africa oo kale kasoo baxay 2003 wuxuu ku takhasusay siyaasadda ayuu ku takhasusay. kadibna markii lasoo dooranayay maxaa la yidhahdaa Ilhaan Cumar ayuu wuxuu u ahaa company asaga la shaqeeyo oo la yidhaahdo World maxaa la yidhahdaa groups ayaa waxay ka shaqeeyaan siyaasadda iyo maamuuskeeda iyo kambeynada la sameeya ayay ku saabsaneed. marka kambanigaas ayuu ka shaqeyn jiray, saas ayayna isku barteen. kadibna markii la doortayna la taliye ayuu u ahaa oo dad aad isugu dhow ayay ahaayeen. ninkan cadaanka ah ee Tim Maynard lagu magacaabo ayaa waxaa la sheegay in naftiisu horinaag u qabay oo sanadkii hore ayadana ay kala tageen. marka waxaad arkaysaa ayadana sanadkii hore dhammaadkiisa ayaa lasoo furay, asna naagtiisa sanadkii hore dhammaadkiisa ayuu soo furay, haddana way isguursadeen. taas maxay micnaheeda tahay? marka waxaa lasoo qoray oo kale in la sheegay ninka naagtiisa markuu furayay asaa ka horeeyay markii naagti furayay inta iyada la furin ka hor. naagtiisa ninka cadaanka naag cadaanka luu qabay, marka naagtiisa ayaa waxay ka codsatay inuu furo. sababtan waxay ku sheegtay ilan maxkamadda markaad tegaysid waa leedahay ninkan hala iga furo ama naagtan hala iga furo, waa inaad sabab sheegtaa la rabaa sooma. waxay sheegtaa layidhi in ay ugu shakisan tahay inay xiriir la leeyahay Ilhaan Cumar. marka sheekada mar hore ay soo socotay oo dadkan ninkeeda xataa Ilhaan naftiisa waxaa laga yaabaa ninkii qabay inuu kaga shakiyay inay ninkan ay la socotay. marka laba qof oo isku dhow ay ahaayeen maadaama uu la taliye siyaasadeed u yahay. hadda say xildhibaan ma ahan, qof iska caadi shaqeeyo waay, laakiin qof siyaasad soo bartay waay, siyaasadda ka shaqeeyo waay. dad badan oo xildhibaano ah ana la talay waa ayuu yahay. marka ninkaas ayay aqalgaleen say kusoo qordhay barteeda Instagram-ta maanta. marka su-aasha waxay tahay nin gaal ah gabar muslimadda ma guursan kartaa? su-aashaas dib ayaan waa la weydiin doonaa. nin muslim gabar muslimada inay nin gaal guursan kartay in kale, laakiin dadka kusoo qoray baalkan social media oo maanta o dhan buuqayay qaarkood waxay difaacayeen inay saxsan tahay ayada lafteeda, qaarna way kasoo horjeedeen. inkastoo Soomaalidu ay qabiil ay ku dhisan tahay, laga yaabe nin walba ninkii hore furay qabiilkiisa iyo inay u kala baxeen gabadha qabiilkeeda. laakiin
asaga ayada siyaasad ahaan arrintan oo aad sheegtay oo aad tiri waxaa laga yaabaa inay xiriir hore u lahaayeen labadaba intay waa lagu xamanaya oo lagu xamanayo warkaas hadda uu soo baxay oo maanta nafteeda waa wararkii la shaacinayay ayuu ku jiray inkastoo war xaqiiqa uusan ahayn marka siyaasad ahaan wax may ka bedeli kartaa ninkan guurkiisa horta saa sheegta waa sheekadii hore oo intaas waa sheegin ka hor aad u gooligtay waxay ahayd maxaa la yidhahdaa in dadka qaar ilhaan wax ka sheegaan oo kale ninkii ayada kala tageen inay isku qabiil ahaayeen oo kale oo qabiilnimo iyo waxyaabahaas waxaan arkaya maanta ninkii hore u kala tageen ilhaan oo intuu soomaaliya yimid gabar soomaaliya guursaday oo cumraha intuu cumro aaday oo maxaa la yidhahdaa kacbadu isku soo sawiray iyo ilhaan cumar oo ninka cadaanka guursaday intii lasoo dhigaa la yidhi midna wuu guulaystay midna wuu halaagmay oo kale marka waxyaabahaas oo kale waa laga fiican yahay qof gabar walaashaada oo soomaali ah in aad ku tilmaantid saan ognahayna maxaa la yidhahdaa ilhaan cumar oo kale waa gabar soomaali ah waa gabar muslimad ah inay diinteeda ay jeceshahay amaba ay ku adag tahayna waxay ku tusinaysaa amaba daliil u tahay markii la doortay oo kale keligeeda muslim ahayn oo gabdho kaloo muslimad ah gabar waxaa jirta oo ayadana falastiin kasoo jeedo oo nafteeda sanadkii hore kii la doortay maxaa la yidhahdaa ayaa jirta oo muslim ah laakiin ilhaan waxay ugu duwaneed ilhaan waxay noqotay gabadhii ugu horeysay oo aqalka baarlamaanka maraykanka ay la tagtay xijaab ayadoo lagu qasbay inay iska bixiso oo kale horey uma dhicin waxay tiri waa dhaqankay waa diinteyda kama tanaasula ayay tiri oo taasna si weyn ayaa looga hadlay marka inay diinteeda ay jeceshahay oo ku adag tahayna markaa fiirisid oo kale xijaab iskama dhigto ilaa hadda way wadataa taas ayaa daliil u ah ninka haddee waxaa laga yaabaa in ninkan guurkiisa iyo gaalnimadiisa iyo waxyaabahaas oo kale si kale ay u aragta ayaa laga yaabaa laakiin in la fogeeyo oo qofka aad tirahdid oo kale ku dhaaftay tan oo tagtay layidhahdo oo kale waxaan u malaynayaa in laga fiican yahay laakiin ka diin ahaan iyo maxaa la yidhahdaa waa ra'yi gooni ah taas oo sheekhi culummada looga laabanaya in la ogoleen oo diinteena waxay noo sheegaysaa qofka muslimka in loo ogolyahay oo kale ahlu kitaabka inuu guursado laakiin dumarka looma ogolo marka maxaa la yidhahdaa siyaasad ahaan waxaan dhihi karnaa siyaasad waa og tahay ilhaan waxaa laga soo doortay minnesota waa xildhibaanad si weyn ayaa waxay isku haysteen trump oo 2 sano iyo ku dhawaad 3 sano intii xilka wadahaayeen muddadii 3 sanada ahayd ay is haysteen oo ilhaan ayay dhuunta ku dhegtay marka waxyaabo badan ayaa laga sheegayay oo nafteeda inay istri ayaa laga yaabaa maadaama ninka hore kala tagteen oo kale nin cadaan haddaa guursatid oo maxaa la yidhahdaa maraykan u dhashay in wax yar culeyskan iyo waxyaabaha lagu hayo oo kale inay ka yaraadaan oo ay istri maybe siyaasad ahaan oo kale meel fog ayay ku gaarsiinaysaa in ay ku fikirta ayaa laga yaaba oo ninkaas sidaas ay u guursatay marka siyaasad ahaan dhaawac uguma imaanayo markii hore waxay ahayd gabar ku timid refugee ahaan oo markii dambena ay saas ku noqotay congress marka maxaa la yidhahdaa oo ninkii qaban uu ahaa nin ayadoo kale oo soomaaliya isaga wada imaadeen mar ayaa waxa lagu eedeyn jiray horta waxay yidhaaheen ninka qabo walaalkeeda ayuu ahaa oo waxyaaba saas ayay yidhaaheen laakiin propaganda waxyaas ayay ahayd hadda waxay tusinaysaa marka ninkan cadaanka hadday guursatay oo kale in siyaasad ahaan ay waxyaabaha u adkaysa ayaa laga yaaba laakiin dhanka soomaalida iyo dhaqanka waxaa laga yaaba inay kaga timaado backlash amaba waxyaaba dhaleeceen iyo waxyaabahaas inay kaga yimaadaan waa laga yaaba laakiin siyaasad ahaan maraykanka haddaa fiirisid in ay siyaasadeeda adeeg noqonaysa ayaan rajeynaya dad ayaa waxay lahaayeen oo kale maadaama gobolka laga soo doorto soomaaliya ay u badan yihiin ma laga yaaba inay yidhaahaan oo kale gabadhii dadka ninka cadaanka guursatay oo ninkeena ka tagtay oo kale ma dooranayn inay yidhaahaan ma dhacayso oo waxay u dhacaynin dadka la tartamaya haddaa fiirisid dad kaloo cadaan waayo oo gaal ah ayay isku meel ku tartamayaan marka gabar walaashaada oo muslim oo nin cadaan raacda maad u codaynaysaa ama nin cadaan oo gaal ah u codaynaysaa marka obviously ninka qofka muslimka ayaa la raacayaan isleenahay siyaasad ahaan waxaan isleeyahay inay wax weyn ugu imaanin ayaan rajeynaya midda kale markii maxkamadda ay tegayeen labada group ilhaan iyo ninkeeda iyo ninkan iyo xaaskiisa ka dalbatay in la furo asaga uu furo ilhaanna waxaa laleeyahay ayadaa ka dalbatay in oo macnaha markii oo la dhaho haddii la dhaho labadoodaba macnaha hore heshiis ugu qabeen inay soo kala furaan labada qof oo qaba si ay isku gursadaan macnaha dhinacaas gabadhaa dalbatay dhinacan ilhaanaa dalbatay maxaa isbedelkaas keenay maya haddii la dhihi lahaa oo kale dhinacan ilhaan ayaa dalbatay dhinaca kalena ayaa dalbaday
ninka naagtiisa ayaa dalbatay haddii lama dhihi karo waa isa sugaan lama dhihi karo oo way ballansanaan haddii ninka dalban lahaa ninka cadaanka oo ilhaan guursaday hadduu dalban lahaa ilan ilhaana u ballansan soo maa waxaa la dhihi lahaa waa is ogaayeen oo adna ninkaa iska soo fura naagta iska soo fura isku imaanen ayaa ahaan lahaa saas ma ahayn oo naagta ayaa ninka iska furtay kan kale marka waxay dhici kartaa un in dad isku dhow dad haddii qofka la taliyo ku yahay oo shaqo idin ka dhexayso habeen maalin isla joogtiin waxyaaba badan inay idin dhexmarana laga yaabo isku dhowaansha taasna shaki ayay abuurtay shakigiina dadkii shakiga qabo oo kale waxaa la dhihi kalaa shaki run ah ayay qabeen waayo wixii dhaca waa ujeedaan dad isguursado waay haddii laakiin dadkan isguursan laheen oo isku soo dhowaan laheen waxaa la dhihi lahaa dad iska shakiya unbay ahaayeen oo waxay ka shakiyeen wax jira ma aheen hadda wixii laga shakiyey oo laisku furay ayaa rumoobay maadaama dadkii laiska wada shakiysanaa inay isla socdaan ay isguursadeen midda kale oo isweydiinta badan oo dad badan ay su-aal isweydiinayaan waxay tahay ilhaan iyo ninkeedii hore oo soomaaliga ahaay oo xajka joogo isla joogaana sawirkooda la faafinaya maantao dhan waxay dadka qaarkood isweydiinaya maadaama nin cadaan oo islaam ahayn ay isguursatay ma kiniisadda isku guursadeen mase masaajidka isku guursadeen taas haddee weli maadaama maanta la soo shaacay inay isguursadeen dib ayaan u fiirinaynaa waayo ilhaan waa ogtahay diinteeda way ku ay adag tahay markii la fiiriyo waayo waa ogtahay markii la doortay waxaa lagu culeys lagu saaraya inay xijaabka iska dhigto ayadoo qaawan tagto dad kaloo muslimiinnimo sheeganayo oo gabadha falastiiniyiinta ah oo laga soo doortay eeda nafteeda oo maraykanka ah maxaa la yidhahdaa xildhibaanad xijaab ma qaadato oo tinteeda iska qaawinta zulaala iska qaadataa dad badan oo islaam way jiraan oo xijaab qaada laakiin ayada waxay tiri dhaqanka kama tegay markii la dhaarinayay dabcan waxaa lagu dhaariyey kitaab qur-aanka lagu dhaariyey oo diinteeda ay sheegtay hadda waxay u dhowdahay maadaama weli aan ogaaninoo xafladdii iyo dadkii wax nikaaxaya aan arag oo ayada un soo qortay maanta ninkan waa isguursanay waa isla soconay maantana waa isguursanay maadaama ay tiri oon baaritaan waxyaabo badan horey usoo bixin haddee waxaan rajaynaynaa qof hore diintiisa uga adkaaday oo kale in lagu dhaariy kitaabka qur-aanka sheegtay in xijaabkeeda iska dhigana sheegtay haddana waxaan rajaynaya in ninkan hadda isguursadeen oo ninkeeda in ay ku cadaadisay un diinteeda ku guursada ayaan malaynaya qofkan waxaa السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا كل إنسان عمر. يقول شيء. هي. حتى جيت هذا كوالد كاي. أطلب قالوا كيف تلمين كوشتين. هي. ما فهمت. وانقل. حاب عدي اللي قبل أوجين هرت نيكو إنه مسلم سوق سنو كان شيء هو شيء ولا غيره. وانقل. لكن حتى اللي ما قال ما. صح. لكن قبر مسلم وحاك حاران إيه قال إنه كوسنا. هي. حط إلهام شربت حط شديد شربت مالك غمد عينه دينتم شربت هذا واحد مالك رجع كرم مال مركا وحويا لكن إلهام عمر مقع الصوماليك أما مسلمو أي مال يخرج على مقرب. أنقرت. قول ولي الذي وصل باجري وينجر أول يعني وصل جري يعني أنا مسؤول عن قال ويليدي. هذا من أول جاء يوب على وين شو مع كلام اللي أنا مقرت. هيك. مركا وحوي كبر ناسي وحق أنا كل ربع ما حنت اللي قبل كتاب قرآن حتى كل عرفيه حجافة لك الشيبة وحكي لها وصوقا من هي المال مقرت.